xaflad sagootin oo ay soo qaban qaabiyeen ardayda iyagu sanadka ka baxay dugsiga sare ee ama secondary school ee degmada Garas isla markaana shahaado sharaf ku guddoonsiinay qaar ka mid ah macallimiinta iyagu muddada dheer wax soo bareeyay ayaa waxay ka qabsoontay hoolka iskuulka xafladan oo ahayd mid si heer loo soo agaasimay ayaa waxaa ka qayb galay maamulka dowladda hoose macallimiin waayeel culimaaddin iyo waxgarad iyo ardayda iyagu wax ka dhigtay iskuulka ugu horreynna waxaa xafladan ka hadlay kana warbixiyay taariikhda iskuul maamulaha dugsiga sare ee ama secondary school Muuse Siciid ayaa la hadaladiisina waxaa ka mid ahaa sida tan xilliga la furay waxay 1999 marxalad badan buu soo maray marxalad badan ayuu soo maray maantana waynu aragnaa waxa weeye cid maamulka iyo macallimiinta intaba ka ahay ardaydii ka baxday waxaan marnaba aan la ilaawi karin macallimiintii waqtiga bilowday oo imikana qaar ka mid ah xaadir yihiin ayaan waxaan leeyahay waxa weeye waxaan la ilaawi karin inay yihiin sidoo kale iyaguna waxa hadalkaas ka daba qaatay guddoonka waxbarashada ee degmada Garadga Cabdi Mire iyo Cawil Dhowaale oo isagu ku hadlayay afka waayeelka ay ardayda wax ka barata dugsigan sare iyo xubno ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka iyo xubno iyagu ka mid ah ardaydii soo qaban qaabisay iyo xildhibaan Aadan Xaaji Axmed iyo xildhibaan Sahal Dhaqo iyagoo dhammaantood baa u mahad celiyay ardaydii soo qaban qaabisay xafladan hadaladoodina waxaa ka mid ah sida tan baa soo abaabuli jiray laakiin tanu waa xafladii ugu horeysay ee arday ay inta soo abaabulaan iyagu jaysadana ay ku bixiyaan halkii iyaga jaysad lagu siin lahaa runtii waa horumar weyn taana waxa keenaya garaadka waxbarasho ee u kordhay gudbaya waxaan kaloo iyana salaamayaa macallimiintii iyo maamulkii juhdiga badan geliyay waxbarashadan degmada Garadga oo ku horeysa oo sanad kasta ay uga soo baxdo arday qiimo leh oo anfacda deegaanka iyo cidii wax bartayba inta ka bacdi waxaan iyana salaamayaa maamulka degmada aan qabanay hadaan nahay ardayda dugsiga sare ee 2014 xafladan waxaan u qabanay macallimiinta iyo labada maamul ee dugsiga oo iyagu galin hore iyo galin dambaba wax noo dhigi jiray sida sare ugu qaadan lahayn waxbarashada dugsiga sare ee degmada maadaama ay galin hore iyo galin dambaba wax noo dhigi jireen si aan ugu wada baxnay waxaanu garanay inaan maamulaha iyo maamul xigeenka oo iyagu dugsiga maamulaha u soo sameeyno laba ashaado intii gabagabadiina waxa xafladan soo afbeeray maayirka degmada Garadga Mudane Faarax Aadan Ciise hadaladiisina waxaa ka mid ahaa sida tan runtii waa xaflad aad iyo aad u qiimo u leh oo taariikhi ah ayaa meesha aynu ku haynaa maanta oo halkan ku qabanayno taasoo sidii la sheegay ku saabsanay sagootinkii ardaydii ka baxday sanadkan 2014 iyo furitaankii iskuulka oo isku beegmay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa ardayda qaban qaabisay xafladda iyo maamulka iskuulka sida hagar la'aanta iyo dhiirigelinta iyo mudnaanta iyo sharafta ay arrinka uga fikireen ay soo qabteen anaguna waa ku taageeray xafladii ugu horeysay nooceeda ay soo qaban qaabiyeen ardayda iyagu ka baxay dugsigan sare ee ama secondary school ee degmada Garadga waa madarasada muuqbaahiye qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Garadga